wariye maxamed cabdi ilig oo muddooyinka ugu dambeysay iyo tan iyo intii xabsiga la geeyeyba xaaladiisa caafimaad aan si weyn looga soo deerinayay. haddaba maanta ayay maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ku xukuntay in wariye maxamed cabdi ilig la iska sii daayo, sidoo kale haddii aan la sii dayn karin la geeyo goob caafimaad. haddaba bulsho weynta Somaliland ayaa si weyn ula yaabay arrintaasi tan iyo markii ay maxkamaddu ku dhawaaqday in la geeyo goob caafimaad balse aanu helin caafimaad dhammaystiran. haddaba saaxiibayaal, su-aasha isweydiinta mudan ayaa wariyaal badan oo Somaliland ku sugan ayaa lagu dhex dilay jeelka, waxaana ka mid ah wariye Cabdisalaam Germany oo jeelka ka tirsanaya in jirdil lagu geystay, iyo waliba sidoo kale wariyaal kale oo ka tirsan wariyaasha la xidhay ayaa iyaguna xaaladooda caafimaad si weyn looga soo dareenaya. hase yeeshee wariye ilig isagu waa mid runtii xaaladiisu ay aad u sarreyso maadaama la sheegay naqasku hayo, balse ilaa haatan aan kula hadlayo aan la geeyin goob caafimaad. waa sida ay noo xaqiijiyeen dadka la jooga. wariye ilig ayaa haatan xaaladiisa caafimaad ka soo daraysa, isaga iyo waliba sidoo kale wariyaal dhowr ah oo iyaguna ku jira xabsida dalka. kaasi waxa uu ahaa qodobkii ugu horeeyay wararkeena. haatan qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah xildhibaan maxamed Abiib oo ka tirsan baarlamaanka Somaliland ayaa taliyaha ciidamada booliska ee Somaliland ugu sheegay in ay u xidhi doonaan Shaadleg. kelmadda macnaheeda markaan isku daynay waxay noqotay in lagu ridi doono Godleg. haddaba saaxiibayaal, qodobada kale aan idin hayna ayaa ka mid ah in wariyaashani loo jaray waaran 5 cisho oo xabsi xalaalayna. haddaba saaxiibayaal, Sooco iyo waliba sidoo kale wariyaasha kale ee warbaahinta Somaliland oo iyaguna afka furtay isla markaana sheegay in aanay u dulqaadan kareynin in wariyaashooda ay sii xidhnaadaan. sidoo kale Cabdinaasir Buuni oo runtii ka hadlay arrinkani isla markaana sheegay in wariyaasha lagu saayo xabsiga. wariyaal badan oo ficil u muujiyay Cabdinaasir Buuni isla markaana sheegay inay ka saari doonaan saaxadda social media. dhammaan wariyaasha Somaliland oo u midoobay sidii saaxadda looga saari lahaa siyaasi Buuni oo ka tirsan xisbiga Kulmiye. xisbiga uu ciidafayeenkiisa oo afka furtay isla markaana sheegay in haatan wixii ka dambeeya ay runtii ka saari doonaan saaxadda social media. Cabdinaasir Buuni isagoo ugu baaqay dhammaan saxafiyiinta in iyaguna ay runtii isku garab taagaan arrintaasi isla markaana ay ka saaraan saaxadda social media. Cabdinaasir Buuni maadaama uu yahay shakhsiyad edeb daran isla markaana qaranka iyo waliba sidoo kale maxaabiista iyo wariyaasha lid kuwa si walba ha noqotay haddana maxaabiis badan oo xaaladooda laga soo darinayo ayaa ka jira gudaha Somaliland. dhawaan ay ahayd markii mashaqo ka dhex dhacday saldhigga weyn ee magaalada Hargeysa, kaasi oo runtii ay baahiyeen wariyaal tiro badan isla markaana la sheegay in wariyaashaasi runtii ay ku muteysteen in xabsiga ay sii galaan. Somaliland oo muddooyinka ugu dambeysay si weyn ay hoos ugu dhacaysay saaxiibayaal xorriyatul qowlka oo runtii la isku cabrinayay. haatan waxaanu kala idin haynaa qodobadeeda wararka ku jira. saaxiibayaal, ku soo dhawaada qodobada wararka oo dhameystiran. haatan aan ku bilaabe abwaan Saciid Maxamuud Gaahir oo ka tirsanaa Somaliland abwaanadeeda ayaa haatan ka soo waramaya gudaha Puntland, isagoo sheegay inuu xidhnaa muddo ku dhow 35 cisho. waxaana uu sheegay in tan iyo intii 30kaasi cisho uu xidhnaa aanu helin wax cadaalad haba yaraatee. haddaba waxa uu sheegay in xorriyadiisa isagu gacantiisa dib uga soo noqday, waxaana uu sheegay in haatan uu ku sugan yahay dalka Puntland. maamul goboleedka Puntland ayuu sheegay in bulshadeedu ay si weyn u soo dhaweeyeen isla markaana ay u kaceen sidii abwaanka loo soo dhaweyn lahaa, balse haatan waa mid runtii dhex mushaaxaya deegaanada Puntland, runtiina sheegay in xorriyad weyn uu dareemayo. Somaliland qof kasta oo caburiso isla markaana xabsiyadeeda gala waxa uu noqdaa runtii mid fiiga. dhalinta Somaliland boqolkiiba 24 ayaa haatan ku maqan dalka dabadiisa oo ka fiigtay qaranka tan iyo intii madaxweyne Biixi uu xukuumaddiisa ay haysatay xilka. haddaba saaxiibayaal, waxa kale oo idin haynaa wararkayga ka mid ah xildhibaan maxamed Abiib oo ka mid ah baarlamaanka Somaliland ayaa ay madaxweynaha Somaliland ugu baaqay inuu ka soo gaaro taliyaha ciidamada booliska ee Somaliland, kaasi oo sheegay in qaranka uu lid ku yahay. xildhibaan Abiib oo runtii ka tirsan golaha baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Somaliland, xildhibaan Abiib ayaa sheegay in arrintaasi uu la yaabay tan iyo intii uu runtii arrintaasi ay kaga soo yeedhay taliyaha. waxaana uu runtii isku dayay in taliyaha uu caqli celiyo, balse taliyuhu ugu dambeyntii waxa uu ugu jawaabay inay u xidhi doonaan Shaadleg. waxaana uu xildhibaanku taasi ay keentay inuu soo fadhiisto social media isla markaana uu bulshada u sheego hadiiba lacala la waayo ama ay wax soo gaaraan in loo raaci doono taliyaha ciidamada booliska Somaliland, maadaama uu taliyuhu sheegay inay u xidhi doonaan Shaadleg. kelmadda Shaadleg ayaa lagu macnayn karaa inay noqon karto inay gacanta ku dhigi doonaan oo xabsiyada dalka ay ku ridan doonaan. haddaba saaxiibayaal, waxaana uu runtii xildhibaanku soo bandhigay markhaatiyaal kala duwan oo runtii uu sheegay in arrinta ay marag iyo markhaatiba ka ahaayeen oo runtii ay ku markhaati furi doonaan. si walba ha noqotee saaxiibayaal,
waan ku bilaabay wararka kale aan idin haynana waxa kamid ah wariye iliga oo haatan ku sugan xabsiyada Hargeysa loona jaray muddo ku dhow 5 cisho oo xabsi xalaalayna ayaa runtii waxa ay xaaladiisu tahay mid aad u adag maadaama uu ku jiro xabsiyada dalka in muddo ka badan 3 maalmood caawa ayay afar u noqonaysaa wariyaasha kale iyo isagaba balse haatan isaga naqaska ayaa ku dhagan waxana uu yaalaa xabsiga dhexdiisa naqasku kama soo baxayo cuntana kama dadagayso runtii sida ay sheegeen dadka ka agdhow maxkamaddu maanta ayay amar ku bixisay in wariyaha la geeyo goob caafimaad si lagu soo duubay isla markaana ay raacaan ciidamada ammaanku oo dib saldhiga lagu soo celiyo hase yeeshee taasi ma suurtagelin waxaana ay sheegayaan dadka ka agdhow in haatan uu sidii xabsiga ugu jiro balse aan hadda aanu helin haba yaraatee wax adeeg oo caafimaada wariyaasha kale qaarkood ayaa laga soo dareenaya xaaladooda gudaha Somaliland ayay ku xiran yihiin in ka badan 15 wariye oo ka tirsanaa saxaafadda Somaliland kuwaasi oo suuqa waahan mashaqadii ka dhacday iyo dhibaatadii Somaliland soo gaadhayna si weyn u tabinayay habeen iyo maalin u soo jeeday sidii ay qarankani runtii u badbaadin lahaayeen hase yeeshee maanta waa kuwa ku jira xabsiyada kala duwan ee dalka runtiina kuna xanuunsanaya wariye Cabdisalaam Jarmani ayaa kamid ah wariyaasha haatan lagu dhex dilay jeesha isla markaana tirsanaya in isagoo markii hore dhibanaa isla markaana lagu deeyay mid kamid ah hoteelada Hargeysa in haatan xabsiga lagu dhex garaaco waa sida ay noo sheegayaan dadka u dhow Cabdisalaam Jarmani hadaba saaxiibayaal Somaliland haatan waxa ku xiran dhalinyaro tiro badan oo ay kamid tahay gabadh raygeeda dhibatay isla markaana u dhibatay warbaahinta oo iyadu sheegtay runtii in ay Somaliland run ahaantii dawladda hoose Hargeysa askarteedu ay iibinayaan daladihii lagu talagalay dadka masaakiinta ah ee dhibaatadu ay ka soo gaadhay suuqa waahan balse ay gabadhaasi lagu xiray arintaasi hadaba waxa sheegaya xogo kale oo aanu helayno oo wariyaasha sababta loo haysto yihiin qad sharaf iyo sharaf ay la qaateen gudoomiyaha xisbiga wadani isla markaana ay si dhow la shaqeynayeen oo ay xukuumaddu arintaasi ka carootay saaxiibayaal wararku intaasi ay nagu eegyihiin wixii waray ka soo kordhay arrimahan iyo waliba sidoo kale arrimaha kale waxaad kala socon kartaa kanaalkeena Ansixinta Wararka maadsanidiin sanankii booliska oo kaga duulinaya gaari iyo taliye araariyada ayaa dalka gorinta ma xasuusan karo weeriyadu ku hadlay